bal ka waran ninkii aad u doonanayd ee aad dartiis indhaha u beeshay maalinkii aad garabkiisa u baahnayd uu ku yiraahdo kuma guursanayo. Assalaamu calaykum asxaabta ku xiran channelka Hussein Hunter. Soo dhawaada fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar muuqaalka like saar aad iyo mahadsantihiin. maanta waxaa idiin wadaa qiso aad u xanuun badan oo run ahaantii gashay dhammaan baraha bulshada gaar ahaan barta TikTok. Sara Mohammed waa gabar u dhalatay dalka Masar waxayna caan ka tahay barta TikTok. waxa uu xiriir jacayl kala dhaxeeyay wiil lagu magacaabo Mustaf. labadoodu oo wada socda oo gaari wada saaran ayaa waxaa soo weerartay burcad, kadibna iyadii ayaa isku dhigtay xabadii iyadoo islahayd badbaadi Mustaf, laakiin labadoodii dhaawacyo ayaa soo gaaray. gabadhii madaxa ayaa xabad kaga dhacday, aragiina way beeshay. waa kana walaalkeed oo boostiga soo dhigay Facebooka wuxuuna leeyahay Sara way badbaaday laakiin indhaheedii ayay beeshay. Subxaanallah. Mustaf ayaa ka kacay dhaawaca soo gaaray oo yaraa. Arinta dhexdhexaadinta leh ayaa ahayd in ninkii uu yiri aniga gabar aragga naafa ka ah nolol lama wadaagay, iyadoo ay maalmo ka dhignayd maalinkii ay qorsheynayaan arooskooda. Sara ayaa tiri dhaawacay soo gaaray waxaa igaga xanuun badan hadalkii uu dhahay qofkii aan dunida ugu jeclaa oo aan islahaa wax waliba uu kula qaybsanaa ee cidlada igaga dhaqaaqay. waxaana aad loogu hadal hayaa arrintan baraha bulshada. run ahaantii waa qiso aad u xanuun badan oo taabanaysa qalbiga. bal ka waran haddii adiga kugu jeclayd qisadan maxaad samayn lahayd? Bal ka waran ninkii aad u doonanayd ee aad dartiis indhaha u beeshay maalinkii aad garabkiisa u baahnayd uu ku yiraahdo kuma guursanayo. bal qiyaas qof sidaas lagu yiri xaalad noocee ayuu ku jiri karaa. aan u ducayno walaasheen Sara inuu Ilaahay murugada ka saaro uuna ugu bedelo farxad. waayo qof walba muslima duca ayuu ka mudan yahay. qisadeennii intaas ayay ku eg tahay. fadlan sii faafi